maanta waxaan isla samayn doonaa 4 thumbnail oo dhalinyarta ku cusub YouTube-ka siin doona views badan iyo click badan iyagoo adeegsan doona mobilkooda kaliya haday rabaan laptop-kooda thumbnailka ugu dambeeyana waxaan ku sharaxi doonaa thumbnailada la yaab kale uu sameeyo YouTuber-ka caanka ee Wabir Media ee aadka u quruxda badan leh inagoo adeegsanayna san hore soo sheegnay telefonkeena hadaa si fiican u fahanto thumbnailka iyo sida loo sameeyo waxaad ku noqon kartaa freelancer oo waxaad ka qaadi kartaa macaamiishaada ku soo dalbada qiimo aad u macquul ah san anigu sameeyo oo kale thumbnailadan oo diyaarsan waxaan u soo diri doonaa qofkii subscribe saara oo comment ku soo qora thumbnail hatta sar subscribe saan ku arkayo saaxiibaan kaftamay hadaa rabto subscribe saarin muhiimadu waxa weeyaan inaan faa'iidada soo gudbino waxaan adeegsan doonaa application-ka loo yaqaan Pixelab oo aan dhawaan ka soo sameyn doono course cajiib ah oo aad la yaabi doonto thumbnailka ugu horeeyana waxaan sameyn doonaa thumbnailkan waxaan soo furan doonaa application-keeni Pixelab oo halkan kaaga muuqda marka aad soo furato san ayuu kuugu soo muuqan doonaa hala yaabin saaxiib waad fahmi doontaa dhawaane marka ugu horeysa waxaan tagi doonaa saddexda dhibcood ee ku calaamadiyay waxaan ka sii tagi doonaa image size ayaan ka sii tagi doonaa kadibna waxaa ku dhufan doontaa meesha ku qoran tahay custom waxaadna ka sii dooran doontaa YouTube thumbnail halka waxaad ku haysataa YouTube thumbnailka cabirkiisii ayaan ku dhufan doonaa kadibna waxaan iska saari doonaa qoraalkan dhinaca kaaga muuqda oo waxaan ku dhufan doonaa calaamadda halka kaaga muuqata delete-ka waxaan imaan doonaa meesha aan ku calaamadiyay saan u soo gasho sawiraanta waxaan ka sii tagi doonaa halkaas import ay ku qoran tahay waxa uu si toos ah ku geyn doonaa gallery-daada hadda waxaan ka soo qaadan doonaa sawirkii background-ka inoo ahaa markaan sawirka soo gashano saas ayuu noogu muuqday relative size ayaan tagi doonaa halka aan ku calaamadiyay ee relative size ku qoran tahay ayaa tagi doontaa marka waxaad ka dhigi doontaa 100 kadibna waxaan tagi doonaa meesha layerska ayaan ku calaamadiyay halkaas ayaad quful soo saari doontaa si uuna kaaga dhaqdhaqaaqin haddaba waxaan sameyn doonaa inaan soo gashano fadhigii uu ku fadhiyay YouTube-ku bartanka ayaan dhigi doonaa inagoo ku sameeyna dhexda haddana waxaan tagi doonaa meesha layerska isagana quful ayaan soo saari doonaa haddaba waxaan haysanaa waa background-ka iyo fadhigii ku fadhiyay YouTube-ka kadibna import ayaan ku noqon doonaa lacagteerida akhtarka quruxda badneed ayaan soo gashan doonaa saaxiibayaal lacagta waxaan sameyn doonaa inaan hoos u dhigno oo ka dambaysiina fadhiga kana horeysiino lacagta waxaan ka horeysiinaa hadda fadhiga ayaan ka horeysiinaa oo waxaan ku simi doonaa geerkeera ugu horeeya kadibna kuuba ayaan ku dhufan doonaa oo iyadna waan leekaysiin doonaa say u noqoto lacag nidaamsan oo loo moodo lacag aad u fara badan ilaahayna siiye kadibna waxaan ku dhufan doonaa duplicate lacagta ayaan ka dambaysiin doonaa fadhiga waxaan tagi doonaa meeshii layerska kadibna lacagta ugu sareysa ee aan doonin inaan ka dambaysiino fadhiga waxaan qaban doonaa halka aan ku calaamadiyay marka halka ku calaamadiyay aan qabto hoos ayaan u jiidi doonaa ilaa aan ka tagayno fadhiga hoostiisa fadhigi waa inuu ka sareeyaa lacagta say lacagtu hoos u marto waxaan imaan doonaa fadhigii xaqiisa dambe isagana duplicate ayaan odhan doonaa oo sidii si leeg baan samayn doonaa oo markastoo duplicate niraahno waa inaan ka hoos marinaa fadhiga lacagta marka xagga dambe ka hoosaysiinay saas quruxda badan leh ayuu inoo soo baxay haddaba tallaabada xigtaan sii qaadi doono waxa weeyaan inaan soo gelino YouTube-kii YouTube-kiisana ayaan soo gelin doonaa marka YouTube-ka halkaas soo dhigno YouTube-ka saan uga dhigno mid 3D ah oo qurux badan waxaan sameyn doonaa in YouTube-ka duplicate niraahno waxaan iman doonaa meesha ay ku qoran tahay color kadibna color-ka ayaad furi doontaa meesha blast ay ku qoran tahay ayaad tagi doontaa saad color-ka waxoogaa madow yar soo geliso si aanu isku color noqon markaad saa samayso YouTube-ka ayaad leekaysiin doontaa YouTube-kan duplicate niri kadibna waxaan tagi doonaa meeshii layerska oo YouTube-ka ugu horeeya ayaan hoos soo marin doonaa si loo moodo 3D ay noogu samaysanto halka ay aragtaan calaamadda ay 3D la moodo hadda waxaan sameyn doonaa inaan harkii u sameeyno kadibna adigoo layeris dooran ayaad ka bixi doontaa oo waxaad tagi doontaa meeshii darug ku qoran tahay waxaad dooran doontaa midabka cad burushka diirada lici doontaa halka blur radius-kana waad soo dalici doontaa ama soo dhaweysada tagi doontaa markaad soo dhaweysada ku dhufato labadaada gacmood ay ku isticmaali doontaa kadibna waxaad sameyn doontaa inaad burushkii ku samayso adigoo si taxadar leh ugu sameynaya hareeraha saas ayuu noo soo baxay markaa dib ayaan ugu noqon doonaa marka calaamadii weynaysada waana ka noqon doonaa waxaan raadin doonaa meesha ku qoran tahay opacity waxaad dooran doontaa inaad opacity-giisa hoos u dhigto kana waxaad sameyn doontaa inaad leekaysiiso haddaba waxaa inoo hadhay inaan u sameyno
midabkii madooba kadibna waxaan ku noqon doonaa darow waxaan dalici doonaa blue radiuska kadibna waan ku sawiri doonaa okay markaas ugu sawirno waxaan tagi doonaa opacity-ga oo hoos ayaan u dalici doonaa waanan ku dhaweyn doonaa hadda waxa la moodaa inaan haysano YouTube aad u qurux badan oo 3D ah kadib waxa kaliya inoo haray inaan soo gashano fartii aan xagga dambe ku qoraynay okay waxa aan sameyn doonaa inaan text tagno waxaan ku qori doonaa marka kun subscribe baan ku qori doonaa fartii waan waaweyneyn doonaa inagoo halka ku dhufan doonaa waxaan keeni doonaa halkan inagoo dhinaca dhigaynaa haddaba waxaan sameyn doonaa inaan fartii hadaba ka soo bedelno waxa aad tagi doontaa meesha ku qoran tahay fonts waxaana ka sii dooran doontaa farta ku qoran tahay impact kadibna waad weyneyn doontaa farta waxaad ka daba-marin doontaa YouTube-ka layers ay tagi doontaa kadibna farta aad soo qaban doontaa oo waxaad ka daba-marin doontaa YouTube-ka sidaa waxaan ku haysanaa thumbnail-kii koobaad oo aad u qurux badan haddaba aan isku guda galno thumbnail-ka labaad waxaan isku sameyn doonaa thumbnail-ka labaad thumbnail-kan marka ugu horeyso waxaan soo gelin doonaa background-ka markaan background-ka soo gashano background-ka ayaa leekaysiin doonaa cabirka thumbnail-ka kadibna quful ayaan ku soo xiran doonaa kadib waxaan tagi doonaa meesha ay ku qoran tahay shape markaan shape-ka tagno waxaan soo qaadan doonaa shape-kan waan leekaysiin doonaa marka cabirka YouTube-ka waxaan tagi doonaa meesha ku qoran tahay gradient markaan gradient-ka tagno waxaan ku dhufan doonaa balasta waxaana ka sii dooran doonaa gradient-ka halka kaaga muuqda midabkiisa ayaan ka bedeli doonaa mid kastaba okay gradient-kan ugu horeeya waxaan ka dhigi doonaa mid khafiif ah oo bilaa midaba haddaba kan cad ayay noo soo hadhoon tagi doonaa isagana waxaan ka dhigi doonaa midabkaad aragtaan waxaan sameyn doonaa inaan halkaa dhigno kadibna wuxuu inoo soo baxay saas ayuu inoo soo baxay waxa aan sameyn doonaa inaan soo gashano garaafkiina san ayaan soo gashan doonaa oo saas ayaan u leekaysiin doonaa meesha aan rabnay garaafkana quful ayaan kusoo qaban doonaa si inuu inooga dhaqdhaqaaqin haddaba waxaan sameyn doonaa inaan soo geliyo odaygii taajirka ahaa ee Elon Musk odaygan ayaan soo qaban doonaa dhinacan ayaan soo dhigi doonaa kurka yare xuneeweyn ayaan ka soo geyn doonaa saan YouTube-ka bartiisa soo dhigano eraser baa iman doonaa waad ka soo geyn doonaa already shaqada waan ku soo fudeediyay waxaan ku soo raacin doonaa marka package-ka isagu uu kurku ka go'an yahay oo aad isticmaali karto wax allaale waxa aad rabtid okay waxaan soo gashan doonaa isagu kurku ka go'an yahay odayga oo marka shadow ama har wata marka waxa aan sameyn doonaa inaan meesha ka goyno kurka YouTube-ka aan soo dhigno YouTube-ka aan soo qaadan doonaa kadibna waan leekaysiin doonaa marka aan leekaysiino barta dhinac ayaan u dhigi doonaa hadda waxaan haysanaa background-kii iyo shakhsiyaddii kadibna waxaan ku qori doonaa title-ka ayaan ku qori doonaa ama waxii markaa thumbnail-ka aan uga dan lahayn oo ah YouTube Analytics-ka okay waxaan soo qaadan doonaa calaamadda waxaana ku hoosaysiin doonaa odayga Elon Musk markaan ku hoosaysiino waxaan qaban doonaa inaan far soo raacino ku qorno YouTube farta ayaan tagi doonaa waxaana ku soo qori doonaa YouTube isagoo far waaweyn ah waxaana soo dhigi doonaa meeshaas marka waxaan ka soo bedeli doonaa midabka waxaana ka soo dhigi doonaa madow fartana waxaan ka soo dhigi doonaa fartan hore isticmaalay ah impact kadibna waan soo dhaweyn doonaa calaamadda YouTube kadibna waxaan ku dhufan doonaa duplicate ayaan ku dhufan doonaa ama fartan ayaan koobi gareynaynaa markaan koobi ku nidhaahno waxaan ku qori doonaa analytics kadibna farta ayaan kasoo bedeli doonaa oo waxaan ka dhigi doonaa mid cad waxoogaa yar ayaan yareyn doonaa waxaan imaan doonaa meesha ku qoran tahay shadow markaan waan furi doonaa halkaa 100 ayaan soo yareyn doonaa halkan kalena hoos ayaan u soo dhigi doonaa si loo moodo waxoogaa yar oo markaa inay har leedahay oo kale haddaba saa waxaan ku haysanaa waa thumbnail-ka labaad waxaan u guda galaabaa waa thumbnail-ka saddexaad waxaan marka hore soo gashan doonaa waa background-ka ay lacagtu ka muuqata ayaan soo gashan doonaa waxaynu maanta wada lacag ay ku saabsan yahay ilaahow bal lacagna si okay kadibna waxaan soo qaadan doonaa overlay-gan ayaan soo qaadan doonaa oo background-ka ka dhigaya mid aad u qurux badan hadda waxaan soo qaadan doonaa waxa screenshot ka soo qaadi doontaa Instagram-kaaga hadda anigu Instagram feed-ga ayaan ka soo qaadayaa already hadda baanta Instagram-kayga waxa uu yaalaa description-ka hadda hal follow ii qoodho madaxaadii saarantay gudoomiye waxaan rajaynayaa inaan gaari doono 20,000 ka fara badan intaan kaga soo baxo Instagram-ka feed-ga ayaan isticmaali doonaa marka wuxuu ka hadlayaa thumbnail-kan hadaan ku sii yara sharaxo sal lacagta Instagram looga sameeyo ayuu ka hadli doonaa hadda YouTuber to dhinaca lacagaha aad ku xeel dheer tahay wad adeegsan kartaa oo waxbaad ka bedeli kartaa thumbnail-kan intaan kaga soo gudbina sharaxaada waxaan soo gelin doonaa kofarka marka mobilka waana leekaysiin doonaa marka calaamadda Instagram-ka si loo moodo
in mobile markaa laga dhex sawiray oo markaa thumbnailku professional u noqdo. Okay, hadda waxaan soo gashan doonaa waa shakhsiyadii oo thumbnailka waxa la oran karaa thumbnailka ugu fudud breakdown ku sameeyo. Waxaan soo gashan doonaa shakhsiyadii oo gacanta ku tilmaamaysa lacagta. Boom. Saa waxaad ku haysataa thumbnailkii saddexaad. Waxaad wada sugtaanba waa thumbnailkii ugu dambeeyay iyo siduu u sameeyo waa Berry Media. Okay, baan isla galnay isagna. Thumbnailka waa Berry Media marka ugu horeysa wuxuu u baahan yahay waxoogaa yar oo sharaxa. Marka ugu horeysa waxa aad ka fikiraysaa mowduuca aad ka hadlayso. Iminka tusaale ahaan oo kale waxaan ka hadlaynaa oo kale khatarta AI-ga. Isagu waxa uu sameeyaa markasta uu mowduuca raadinayo AI ayuu ku sameeyaa markaa sawiraanta. Haddaynu AI waqti uma hayno saan ugu sameyno, laakiin waxa ka caawinaysa application-ka loo yaqaano Pinterest. Application-kan ayaan soo furi doonaa. Markaan soo furno already san ayuu kuugu soo muuqan doonaa oo halka waxaad ka arkaysaa waxyaabahan anigu ka baaro inuu markaa algorithm-ku kuu soo saarayo. Intaan kaga soo baxno, haddaynu waxaan sameyn doonaa thumbnail-ku tusinaya dhamaadka caalamka. Okay, waxaan imaan doonaa marka ugu horeysa halka ay ku qorantay shape ayaan imaan doonaa. Markaan shape-kaan imaano waan weyneyn doonaa shape-kan. Markaan shape-ka weynano leekaysiino waxaan imaan doonaa meesha ay ku qorantay gradient. Marka gradient imaano waxaan ka sii dooran doonaa halka ay ku qorantay plus. Waxaan tegi doonaa halka ugu horeysa ku calaamadiyay. Marka halka tagno waxaan imaan doonaa meeshaas. Waxaan ka sii dooran doonaa hadhow meesha calaamada color-ku kaaga muuqdo. Color-ka ayaan imaan doonaa. Hoos ayaan u dhigi doonaa black color ayaan ka dhigi doonaa. Waxa aan tegi doonaa halka labaad ayaan imaan doonaa. Marka dhinaca labaad nimaano waxaan ka dhigi doonaa midabka madow ayaan ka dhigi doonaa. Kadibna saas ay noogu soo baxaysaa sawirkeennii. Okay, waxaan sameyn doonaa haddaba inaan soo gelino diyaaradii. Markaan diyaaradii san u soo gashanno, diyaaraddu san ay noogu muuqan doontaa oo saas ayaan u arki doonaa. Kadibna waan soo weyneyn doonaa diyaaradda. Halkaasna waan soo dhigi doonaa. Markaan diyaaradda dhinaca soo dhigno, xaggan kalena waxaan u sameyn doonaa shape-ka ayaan soo qaadan doonaa. Markaan shape-kii soo qaadano, isagana waxaan soo raacin doonaa gradient-kan hadda markaa sameynay. Kadibna halkaas ayaan ku dhufan doonaa. Already waxaad aragtaa inuu gradient-ku dhinaca u jeedo. Waxaan imaan doonaa meesha ay ku qorantay crop. Markaan crop-kaan imaano waxaan ugu rogi doonaa dhinacaas ayaan ku dhufan doonaa saan midig ugu rogno. Isagana san ayuu soo weyneyn doonaa oo dib ayaan u bixin doonaa. Kadibna waxaan soo gelin doonaa shaygii dhinacan kale aan soo gashanaynay. Okay, isagana waxaan tegi doonaa meesha ku qorantay texture. Markaan texture tagno halkan ayaan ka soo gelin doonaa markaa waxa aan rabnay. Okay, sawirkan ayaan soo gashan doonaa zombiga. Kadibna sidaas ayuu noogu soo muuqan doonaa. Waxoogaa yar ayaan habeyn doonaa zombiga si uu inoogu noqdo mid professional aan rabnay. Okay, saas ayaan u soo dhigi doonaa meeshan. Okay, background-ka ayaan madow ka soo dhigan doonaa. Already hadda waxaan ku soo xidhan doonaa laba pin ayaan ku soo xidhan doonaa. Hadda saa waxaan ku haysanaa laba sawir oo isdhex gashan oo la dareemeynin in markaa wax u dhaxeeyaan. Haddaba muhiimadda ugu weyniba waa farta iyo siduu u qoro markaa. Halka waxaan ku soo qori doonaa dhamaadka adduunka. Halkan dhamaadka kaliya ayaan ku qori doonaa. Waa inay daadu waaweynaataa oo far waaweyn ahaataa si ay noogu soo baxdo mid aad u qurux badan. Markaan fartii soo qorano dhinacan ayaan imaan doonaa. Kadibna waxa aan sameyn doonaa inaan midabka ka dhigno midab huruuda. Inagoo tegayna meesha color ku qoran tahay oo raadinayna midabka huruuda. Waxaan tegi doonaa meesha ku qorantay fonts. Kadibna waxaan sii dooran doonaa farta ay ku qorantahay impact. Markaan fartaas sii doorano dhinacaas ayaan soo dhigi doonaa. Kadibna waxaan tegi doonaa meesha ay ku qoran tahay stroke. Stroke-gaas ayaan tegi doonaa. Midabkan waxaan ka soo dhigi doonaa madow. Stroke-ga waxaan ka dhigi doonaa 27. Kadibna waxaan ka sii dooran doonaa meesha ay ku qoran tahay inner shadow. Inner shadow markaan ku dhufano isagana waxaan ka dhigi doonaa halkaas cadaan ayaan ka dhigi doonaa. Kadibna waxaan tegi doonaa halka ugu dambeysay inner shadow-ga. Halka ugu dambeysay inner shadow-ga tegi doonaa oo waxaan ka dhigi doonaa 4 ayaan ka dhigi doonaa ama 3. Kadibna waxaan tegi doonaa meesha ay ku qorantay shadow. Shadow ayaan imaan doonaa oo halka 100 ayaan soo gaabin doonaa. Midabkan waxaan ka dhigi doonaa midab madow oo hoos ayaan u soo riixi doonaa dhinacaas. Halkan kalena hoos ayaan u soo riixi doonaa. Dhinacana hoos ayaan u riixi doonaa. oo settingkiiskaan isticmaalay ee isticmaali doontaa. Kadibna halkan ayaan ka oran doonaa duplicate ama copy waxaana dhinacan ku soo qori doonaa adduunka. Markaan soo qoro dhinacaas ayaan soo hoos dhigi doonaa. Adduunka midabka ayaan ka bedeli doonaa oo midabka cadaanka ayaan siin doonaa. Kadibna waxaan ku noqon doonaa meesha ay ku qoran tahay inner shadow oo midabka cadaanka u ahaa ayaan ka soo dhigi doonaa waxoogaa yar oo madow ah. Kadibna saas ayaan soo ag dhigi doonaa. Markaan saas sameynay
waxaan tegi doonaa meeshaas ay ku qoran tahay darow marka waxaan ku sawiri doonaa midab madow ayaan ku sawiri doonaa oo dhinaca ay naga qabanaya si aan background uga dhigno kadibna waxaan tegi doonaa meesha layerka oo dhammaadka adduunka ay ku hoosaysiin doonaa saa waxaan ku haysanaa thumbnailada quruxda badan uu sameeyo youtuberka Waaberi Media waa sidaa iyo kulan dambe oo xiiso leh waxaa idinkaga sii tegayaa saa iyo salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh